ma jiro shay dunida ku noolaanayo nafsadiisa webiguba ma cabbayo biyihiisa geeduhuna ma cunaan midhahooda shinniduna ma cabto malabkeeda qoraxduna keligeed iskuma iftiimiso iftiinkeeda ubaxuna isaga iskuma abuurin halkuu ka soo baxay haddaba aynu isla noolaano innagoo wada jirna yacnii midba midka kale ha caawiyo oo ha ku saacido wuxuu dheer yahay ahaada kuwa caawiyo midba midka kale oo yuusan sabab u noqon midkiin midka kale musiibadiisa oo haddaadan wax tari karin wax dhibaatayn cimrigu wuxuu u soconayaa si degdega haddaba ka ilaali carabkaaga dulinnimada iyo hadallada dhacdhaca ah ogowna dhammaan way dhashaan sidaasi oo kale ayayna u dhimanayaan balse allah subxaanahu wa tacaala oo keliya ayaa baaqi ahaanaya weligii sidaasi awgeeda sabab u noqo farxadda dadka kale si aad wax ugu soo kordhiso soo noolaynta waxyaabo qurxinaya noloshooda ogowna deeqsinimadu waa inaad bixisaa waxaad awooddid wax ka badan wanaagga naftana waa inaad qaadataa in ka yar intii aad u baahnayd